مرشح aqoon-yahan Cabdiraxmaan Cali Mataan oo taagan doorashada golaha wakiilada ee gobolka Sanaag kana sharaxan xisbiga mucaaradka ee wadani iyo Saalax Maxamed Xasan oo taagan doorashada golaha deegaanka ee degmada Cirigabo ayaa caawa xariga ka wada jiray xafiiska guud ee ololaha garabka haweenka ee murashax Cabdiraxmaan Cali Mataan munaasabada xariga jarka xafiiskan oo ka qabsoontay afaafka hore xafiiskaasi ayaa waxa ka soo qayb galay boqolaal ka mid ah taageerayaasha murashax Cabdiraxmaan Cali Mataan waxaan ugu horeyntii halkaasi ka hadlay isla markaasina hadalada ay kala dambeeyay haweenkii ka soo qayb galay xariga jarka xafiiskan iyo waliba mas'uuliyiinta guud ee kaambeynka murashax Cabdiraxmaan Cali Mataan ee beesha musaturo u sharaxan inaynu si midaysan aynu codka u siino inaynu codka ku hubsano hadda kaambeeygi baa bilaabmay kubad baa la ciyaarayaa kubadda ninkii dhaafa kaarka waxa loo dhibaa kaarka cad faarta qabatay baa leeyahay faartu yayna qaban taan ka digtoonaano faarta aan ka digtoonaano damalkaasaynu harsanaynaa iyo tiri laba wan aan ku hubsano ballan sidaa ma inoo tahay تاسمينا بلنتهاي عليكم ورحمة الله وبركاته تمام ليش المسطول واي هكا يسوتني وحن سلامة يا الله الله هكا يسوي من ما تودي هوشان شرفت بدل قبطي مركا كلا حفلة وحن نوقع بنا هذا من هاي هوينك وحن نوقع بنا حل بعنا ضيّرة أنا طاير سنة هاي هالك هاو كستان ولا أنا مو صادق ماي هواي وبدأني وشرح هاي ورتك وهذا كمان وكيل وحوي عبد الرحمن علي مطار يقول هذا يجان كنا أنا ويفرد عقيبنا ويكم مكان هاي مركا إن شاء الله تعالى وحن هالك نوني بدعاء وحفلة كسر دويني وشرحين تعالى ضياء كونا عود كينا نسينه وتعمل إسلا كرامة inta yada aan soo dhaweynayno ayaan xafladda u qabanay Cabdiraxmaan Cali Mataan sheekh dibaanadiisa golaha deegaanka ayaan anagu xafladda u qabanay Cabdiraxmaan iyo baa ka jooga Saalax dibaanada aan xafladda u qabanay waxaan u leenahay soo dhawaada دارم بارسين يا أبلاه هذا لك فديا قارب عروضة يا كيمين قارب واحد كيم عدن هذا شقوي كلاه هي بكيم عدن واحد نوغنني إذا نحد بعنا ذي نعرف نوغا ما يمان إذا نعد كسينا نوغنني سيدا متى مسالة واحد اللي عندما هذا الكيد كوبا دي ماي عد كنواد aqoon-yahan Cabdiraxmaan Cali Mataan iyo inaan ku kala hadhin kulligeen halkan waxaan ka salaamayaa haweenka qaaliga ah ee Muuse Saalax dhammaan horta mahad baan u soo jeedinayaa waxa ku xiga labada xildhibaan Cabdiraxmaan Cali Mataan Saalax Maxamed Xasan oo labaduba sharaxan yihiin xildhibaanadani way jiraan laakiin caawa Saalax baa fadhiya waxaan kaloo sheegayaa hablaha Muuse Saalax dadka lama mid ahayn hiil iyo hooba way lahaayeen maanta waxaan leeyahay waa maalinteeni midna wax la fari maayo inagu damalka waxaynu ku raacnay inuu daacad yahay inuu isku keen ururin karo geed kale lagama maarmo astaantiisuna waa qaali shakhsiyadiisuna waa qaali ka anagu hadalka badin maayo haweenka aad iyo aad baan u salaamayaa aqoonna waan u leeyahay waana ka soo jeedaa aadna si fiiro gaar ah baan u leeyahay waxaan leeyahay caawa habeenadeeni urur iyo meel isugu yimaada waxba ay taarintay inagu waxaan nahay dhalinyaro mustaqbal baynu rabnaa maxay tay waxaan idinkula dardaarmayaa inaad idinku raacdaan meesha aad isleedihiin dantiina ku jirta Cabdiraxmaan Cali Mataanna way ka muuqataa qofku waxa la yiraahdo horta wax lagu doorto waxa ku fiican qof Ilaahay ka baqaya qofku Ilaahay hadduu ka baqo maxay tay ay ka muuqato maxay tay diini waa inaad raacdaan waxaan idinkula talin lahayn Cabdiraxmaan codka siisaan waxaan leeyahay Cabdiraxmaan adeer wad guuleysan doontaa insha Allah hiil iyo hooba waan kula garab taaganahay guul baan ku rajaynaynaa adiyo xildhibaanada kaleba dhalinyaradana waxaan kula dardaarmayaa ismuujiya inagu mustaqbal doon baynu nahay yaa ka laabanina balanteenu waa damalka aynu wada harsanaynaa damalka u codeeyo sulka wada hubsada damalka u codeeyo sulka wada hubsada fartana ku saxeexa oo xuduudda siiyade markuu soo baxona baa
warweyn ha noqdo. xafladan waxay daaran tahay in rag iyo dumar aynu dhexda u xidhanno sidii aynu soo saar lahayn booskana u geyn lahayn musharax cabdiraxmaan cali mataan iyadoo waqtigu kooban yahay xafladan caawa xildhibaanku wuxuu idinku sheegi doonaa musharaxu baahiyo badan oo gobolka ka jira anigoo aan ka sii hordhacayn waynu ka warhaynaa laakiinse ballankeennu waxa weeyaan in xaasidnimo naga reeban tahay ciilqabi naga reeban yahay dhammaan wax walba oo wax xumeeya ay naga reeban yihiin kaambeenu ma jeedno weli ilaahay waxaynu ka baryaynaa waqtiyaalka muddada yari inaga xigto haddii ilaahay idhaahdo in aynu guul iyo farxad aad u dildilaacno oo qosolno taasina waxay ku imanaysaa dadaal iyo dhexda oo la xidho iyo dulqaad badan oo la muujiyo duruufo badan awgood waxaan idiin soo jeedinaynaa oo idinka codsanaynaa inaad dulqaad muujisaan inaad dadaal hawl badan iyo hadal yar baynu isku ognahay aad iyo aad baan idiin salaamayaa haweenweynaha iyaga oo inta aan soo sheegayba ka kooban waxaan idinka mahad celinayaa waqtigiina aad soo horteen iyo xilli dambe ay tahay xaafada laga yimi taana waad ku mahadsantihiin hooyooyin cabdiraxmaan cali mataan oo halka caawa inoogu casuban oo inoo fadhiya waa geedkii berdaha inoogu yiilay halkaa waana geedkii laga helay qof waloo musaturwaa la odhanayay halkaasuu joogaa ka doona ballankeennu waxa weeye musatur waa qura kuma koobna cabdiraxmaan cali mataan waa nin gobolka sanaag oo dhan u sharaxan ma aha nin musatur waa qura u codaynayaan waa nin gobolka bulshada gobolka sanaag oo dhammi ay u codaynayaan annaguna dhammaanteen waxaan leenahay aan dadaallo birdaha waxa inoo dhalan doona midhihii aynu ka guran lahayn way inoo dhalan doonaan waxaana inoo dhalinayaa oo midhaha inoo bislaynayaa waa fartaa iyo codkeenna oo aa ku hubsataan calaamadda cabdiraxmaan cali mataan iyo calaamadayda 321 gabagabadina waxaa halkaasi ka hadlay murashaxa aqoon-yahan cabdiraxmaan cali mataan isaguna haweenweynaha gobolka Sanaag ka dalbaday inay codadkooda ku taageeraan 11 bisha May isla markaasina waxa uu halkaasi ka sheegay waxyaabaha ku kalifeen inuu soo sharaxo doorashada golaha wakiilada ee gobolka Sanaag oo dhawaanaya kelmad yar oo dardaanana oo ballana oo inoo dhaxaysa doorashadu ama ku guulaysigeedu micna samayn maayo hadalkayga u fiirsada micna badan samayn maayo haddaynu inagu isku nacno waxa weeye doorashadu waa kubad la ciyaarayo waa gool la isku dhalinayo marka ay dhamaatona gacmaha la isqabsanayo waxa inoo ballana hablow waxa inoo ballana iyo rag dhalinyaraba inayna haddaynu tolnahay ayna ku coloobin food la bixinayo oo ninka ama waa aniga ama waa maxamuud warsame waa inan iyo adeerkii waxaan idinku imi oo ilaahay og yahay waa hiilaan idin hiiliyaan idinku imi in aad dhakhtar yeelataan inaad biyo macaan yeelataan inaad iskuul yeelataan inaad meela ka codaysaan yeelataan inaad shaqaale yeelataan waxa weeye inaan waxadano uma iman inaan laaluush qaato uma iman in aan waxaadinla qabto wixii ilaahay ama aan ka keeno dhul kale ama dawladdan aan ka keeno wixii xaq u leedahay aan ka soo qaadanno laakiin عدنان عبد الرشيد علي تلفزيون كرسن ارغابو